وأيام بأيام دوني آخر ثبان من آن لهان دخل غيلا وأيام إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته أحمد حسن عوكة يا ساكا أرورنمدي هore ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. wariye Cawke waxa uu ku dhashay magaalada Togwajaale oo ku taala xadka Itoobiya iyo Somaliland kala qaybiya, wuxuuna ahaa 73 jir. isagoo raadiyo Muqdishona ku soo biiray sanadkii 1972 ilaa burburkiina wuxuu wariye ka ahaa warbaahinta qaranka qaybaheeda kala duwan. TV-ga qaranka oo markii dambe ka howlgalay isagoo ahaa afayeenkii madaxweynihii hore Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. marxuun Axmed Xasan Cawke waxaa lagu soo booday habeennimadii Salaasada isagoo aan wax xanuun ah qabin, waxaana la dhigay cisbitaalka Jigjiga halkaas oo uu ku xijaabtay. wuxuuna ahaa suxufi rugcada oo saxaafadda si aad u yaqaanay. haddaba dhegeystayaal, sida aanu horay idinku soo xusnayba Axmed Xasan Cawke waxa uu ka mid ahaa wariyaashii idaacadda qaranka ee Radio Muqdisho, sidoo kalena waxa uu ahaa wariyihii khaaska ahaa ee madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. waana kan wariye Axmed Xasan Cawke xilli uu akhrinayo war ku saabsan aqoon isweydaarsi loo qabtay culimada Soomaaliyeed, kaas oo uu soo xiray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu shalay galabnimadii si rasmi ah u soo gabagabeeyay aqoon isweydaarsigii maalmahanba u socday culimada Soomaaliyeed oo ka kala socday dhammaan gobolada iyo degmooyinka waddanka Soomaaliya uu ka kooban yahay. waxaana oo aqoon isweydaarsigaasi socday bishan aynu ku jirno 1 ilaa 25 waxaana muxaadarooyin ka jeediyay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dalkan Soomaaliya. gabagabadii aqoon isweydaarsigaasi khudbad qiimo leh oo madaxweynuhu ka jeediyay waxa uu kaga warramay doorkii shariifka ahaa ee culimada Soomaaliyeed ka soo qaateen fidinta diinta Islaamka, waxaana uu sheegay inay ahaayeen kuwo iskood isu faray barashada diinta Islaamka, kadibna ku dadaalay sidii ay u bari lahayn ummadda Soomaaliyeed oo iyadu 100% dad muslimiin ah. madaxweynuhu Jaale Siyaad waxa uu sheegay in kacaanku isagoo qadarinaya doorka shariifka ah uu mudnaan gaar ah u siiyay halgankii culimada Soomaaliyeed ka soo qaateen gobonimada dalka iyo xaqiijinta midnimada shacbiga Soomaaliyeed, kaasoo ay bulshadooda kaga kasbadeen maamuus iyo xushmad gaar ahaaneed. madaxweynuhu waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in culimada Soomaaliyeed ay sii xoojiyaan doorka ay ku leeyihiin baahinta diinta Islaamka ee muqaddaska, xoojinta midnimada shacbiga Soomaaliyeed iyo ka hortagga kuwa yar ee isku dayaya inay si xun u fasiraan caqiidada diinta Islaamka, isla markaasina doonaya inay kala dhantaalaan midnimada shacbiga iyo horumarkiisa. madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay xaaladda degmooyinka ka tirsan gobolada waqooyi dalka Soomaaliya oo dhawaan waxyeello ay gaarsiiyeen budhcad, waxa uu sheegay in xaaladaha degmooyinkaasi ay haatan yihiin mid caadiya, howlaha qarankuna si habsami ah uga socdaan. Jaale Siyaad waxa kaloo culimada uga warramay heshiiskii nabadeed ee dhawaantan dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, wuxuuna sheegay in qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay la dhaqan galiyay inta harsanna lagu guda jiro dhamaystirkooda. Axmed Xasan Cawke sanadkii 1996 ayuu ka mid noqday wariyaashii idaacadda BBC-da gaar ahaan laanteeda afka Soomaaliga, kadibna waxa uu ku biiray idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga. warbaahinta muuqaalka marka laga reebo TV-gii hore ee dalka Soomaaliya lahaa, sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay telefishinno gaar loo leeyahay sida Raad TV, Universal TV, Home Cable TV iyo telefishinka qaranka Somaliland ee SLN TV. mar kale waa kan wariye Axmed Xasan Cawke oo ka hadlaya laanta afka Soomaaliga ee BBC-da isagoona akhrinaya barnaamij ku saabsan taariikhdii hore ee Soomaalida.
sanadku markuu ahaa 1866 ayaa turkigu dabadeed sokayn iyo musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxaa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulaxaar. وأيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دخل غيلا وأيام بأيام ugu dambeyntii wariye Axmed Xasan Cawke waxa lagu aasay magaalada Togwa Jaale halkaas oo ahayd meeshii uu ku dhashay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland madax ka socotay golayaasha qaranka qaybaha warbaahinta Somaliland iyo madax ka socotay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galabta ka qayb galay aas qaran oo loogu sameeyay magaalada Togwa Jaale. Axmed Xasan Cawke oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya. aaska Allah u naxariistay wariye Axmed Xasan Cawke ayaa kulmiyay dad tiro badan oo kamid ah haldoorka bulshada Somaliland iyo qaybaha warbaahinta Somaliland iyo kuwa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in marxuum Cawke uu kamid ahaa tiirarka warbaahinta ku hadasha luqadda Soomaaliga kaas oo la rabo in ay ku daydaan suxufiyiinta kale. gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo saaxiib dhow la ahaa marxuum Axmed Xasan Cawke ayaa sheegay in marxuumka ay isku fasal ahaayeen kuna wada biireen dugsigii Camuud sanadkii 1966 waxaanu xusay inuu ahaa wariye saameyn weyn ku yeeshay warbaahinta Soomaalida. gudoomiyuhu waxa uu intaasi ku daray in dabeecad wanaag lagu yaqaanay marxuumka. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sheegay in marxuum Axmed Xasan Cawke uu dariiq fiican u jeexay warbaahinta ku hadasha luqadda Soomaaliga isla markaana uu ka tagay dhaxal taariikheed waari doona. waxa uu wasiir Cukuse xusay in marxuum Cawke muddo dhowr iyo 40 sano uu ku soo jiray mihnada saxaafadda uu ka howlgalay hay'ado warbaahineed oo isugu jira kuwa caalami ah iyo kuwa maxalliba ah. waxa kale oo goobtaasi ka hadlay xubno kamid ahaa shakhsiyaadkii muddada dheer soo wada shaqeeyeen kuwaasi oo ay kamid ahaayeen warfidyano aad looga yaqaano guud ahaanba geyga Soomaalidu ay digto sida Idris Cigaal Nuur, Yoonis Cali Nuur, Siciid Cali Muuse, Cabdisalaan Ibraahim Hereri waxayna dhammaantood iska daba mareen astaamaha baadi socda u ahaa ee lagu yaqaanay marxuumka waxaanay ku sifeeyeen wariye codkar ah hibo fiicanna u lahaa hanaanka wartabinta iyagoo si gaar ah isu dul taagay barnaamijyada maaweelada oo marxuum Cawke uu caan ku ahaa. sidoo kale waxa aas qarameedkaasi ka hadlay qaar kamid ah suxufiyiinta jiilka maanta jooga. alla naxariistii jannaha ugu deeqay marxuum Axmed Xasan Cawke wuxuu ifka kaga tagay 6 caruur ah iyo hooyadood Marwo Sacdiyo Cabdilaahi Salaad. كدران وأيام بأيام